waxaan ugu baaqaynaa telefishinka bile ee diyaariyey filimkan arday in aad allah uga baqdaan sii daynta filimkan iyo baahintiisaba haddaad dad muslimiina tihiin ummaddiinnana aydan u horseedin fasaad diineed iyo mid akhlaaqeed labadaba mujtamiciinnana aydan ka bixinin suurad xun. kulanka maanta ay iskugu yimaadeen culimmada magaalada muqdisho qaar ka mid ah wuxuu xambaarsan yahay iyagoo raba inay bulshada ka wacyigeliyaan sidii looga hortegi lahaa laguna joojin lahaa filimka qaybtiisii koowaad la sii daayey ee loogu magac daray arday ee uu baahiyey TV-ga bile. filimkan arday waa filim ka been sheegaya xaqiiqda ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dugsiyada dalka ka jira xagga labiska ardayda dugsiyada iyo akhlaaqda goobaha waxbarashada labadaba. inay culummadu uga naseexeeyaan walaalahaasi inay filimkaa ka daayaan mujtamaca Soomaaliyeed inay ku dhex baahiyaan. anugu waxaan ka mid ahaa intaan qaybta koowaad la soo daynin ka hor akhyaartii ka qayb gashay oo walaalahaas la fadhiistay oo uga naseexaynayay baan ka mid ahaa. saacado ayaan wada fadhinnay aan uga naseexaynaynay filimkan inuu xambaarsan yahay dhaqan xumo didku ah diinta islaamka iyo mujtamaca Soomaaliyeed ee muslimka ah. waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed in ay Allah ka cabsadaan gaar ahaan hay'adaha warbaahinta nooc kasta oo ay yihiin iskana ilaaliyaan baahinta wax kasta ee wax u dhimaya diinteenna iyo dhaqankeenna suuban kana taxadaraan soo gudbinta dhaqamada shisheeye ee xunxun. waxyaalo badan oo aan tusaalaynay oo aan tusaale ugu soo qaadannay oo aan nidhi maxaa ka wadaan inaad arrintan iyada ah mujtamaca la wadaagtaan ma waxbaad ku duminaysaan mase wax wanaagaha inkaga muuqda su'aalaha noocaasa aan weydiinay walaalaha waxa weeyaan xaggooda kama imaanin haba yaraatee wax ijaabo ah oo inay su'aalahaas ka jawaabaan ah. kulankaasi wuxuu ku dhammaaday bilaa natiija isagoo wax natiija laga gaarin ayuu ku dhammaaday. maxaa yeelay diinta islaamku waxayna amraysaa qofku hadduu qaldan yahay in loo naseexeeyo naseexadana marka hore laga bilaabo. waa filim u horseedaya jiilka yaryar akhlaaq xumo iyo fasaad waayo dhaqan xumadii ayaa lagu turjumay af Soomaali goobihii waxbarashadana waxaa laga turjumay wax aanay ahayn iyadoo aan ognahay maanta doorka baraha bulshadu ka ciyaarto fasaadinta iyo dhaqan rogga ummadda oo ah dhinaca xun iyadoo la awoodi karo in loo adeegsado dhinaca wanaagsan. culummadu markii koowaadba waxay ku didaaleen inay la kulmaan oo u naseexeeyaan oo ilaahay dartii ula hadlaan oo khatartaa u sheegaan oo caaqiba xumada ay leedahay u sheegaan adduun iyo aakhiraba inaan ardayga Soomaaliga ah ee dalkiisii wax ku bartay in maanta laga gudbiyo fariinta xun dhibaatada ay leedahay. waxaan ka bilownay ayaga inaan la kulanno oo u naseexayna ayaan ka bilownay. marka ilaahay ka cabsada iska daaya waxaan fawaaxishta ah ee foolxumada ah oo kuwana aad dadka baraysaan kuwana aad markaa yacni dadka ugu masabidanaysaan oo masabidaadda qadafka iyo waxyaabaha la midkaa in qofku ilaahay uu uga cabsado mas-uuliyaddiisii qaato caqliga ilaahay siiyey imkaaniyaadka inuu dad wax u gudbiyo ilaahay uu siiyey inaynan arrintaa iyadaa shaydaan uunan u adeegsanin oo dhanka shaydaanka aan loo adeegsanin. laakiin nasiib darro arrintaa iyada ahi natiijo la'aan bay ku dhammaatay. isla habeenkii dambeba qaybtii koowaad ayaan waxa weeyaan la soo daayey. taasaa marka waxay keentay mar kale culummadu inay si caam ah inay ugu naseexeeyaan addiinu nasiixa
ilaahay in looga baqo waa la dhimanaa qabrigaas yaa nin walba uu gelaa dabadeedna ilaahay buu hor imaanaa qof kasto wa kulluhum aatiihi yowma alqiyaamati fardaa qofka taxadiga ku samaynaya macsi waxaan leenahay war xasuuso wa kulluhum aatiihi yowma alqiyaamati fardaa waxaan ugu baaqaynaa walaalahaas baahinaya qaybaha soo socda ugu talagala inay baahiyaan ilaahay inay uga baqaan mujtamacan muslimka ah ee fariinta xun ay ka gudbinayaan hadday tahay dal ahaan iyo diin ahaan iyo dadnimaba weliba ay ku dhacayso dhaawaca ugu weyne ardayga marka laga soo tago dadkii waxbarashadan waxa weeyaan soo hayay intaas oo soo barbaarinahayay culummadii deegaankii diintii dadkii dalka iyo dadkaba ugu sarreeyey maamul sariya mid hoosaba laga tarjumahayo in laga gudbinahayo inay waddanku uu yahay tacliimta xaggeeda meel daroogada lagu cuno meel gaangis ah meel waxa weeyaan qaawanaasho iyo kala xishood la'aan ah ayadoon ognahay waxaas inaysan ka jirin madaarista iyo bahda waxbarashada way jiraan hal iyo laba iyo dad bani aadama qalad lagama waayo laakiin xaqiiqada dhabtahay waxay tahay waxal maanta la sii daayey oo hore loo sii daayey inaynan marnaba ka tarjumahayn dalka iyo diinta islaamka midna inaynan ka tarjumahayn haddana intaa ka bacdi rasuulka sala alla ly slam waxa uu yidhi waxaa kaloo uu ku daray min calaamaati saaca wa takhwiinu alamiin qofka daacadda qofka ula talinaayo in la tuhmo oo la yidhaha waxaasaa soo dirsaday kuwaasaa soo dirsadeen kuwaan maa laga hadlo kan maxaa looga hadli waayey qofkii marka adiga khayrka iyo nasiixada kuu sheegaya inaad boqolaal waddo waanana soo martay marar badan oo waxaan xasuusannaa waxyaabo aan dadka ka reebnay ka celinnay haddana dadku ay tuhumaad iyo culummada ku tuuraayeen markii dambena dadku ay ku dhibaatoobeen oo ay culimmadii iyo dadkii wax sheegaya waa saxsanaayeen ay yidhaahdaan